guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kulan waxay la yeesheen mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland. kulankan oo ka qabsoomay xarunta wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ayaa markii uu soo dhamaaday waxa saxaafadda si wada jir ah ula hadlay gudoomiye ku-xigeenka guddida dhaqaalaha Xildhibaan Barkhada iyo sidoo kale Maxamed Cabdi Gurxan agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaana ka warrameen kulankan iyo sidoo kale waxyaabihii la iskula qaadaa dhigay muddadii uu socday kulankaasi. guddida dhaqaalaha ganacsiga iyo maaliyadda golaha wakiiladu waxaanu qaadanay kulan shaqo waan la qaadanay wasaaradda maaliyadda oo uu horkacayay agaasimaha guud ee wasaaraddu. ujeedka kulankani wuxuu daaranaa kulan shaqo oo xeerarka golaha horyaalla kalfadhigan saddexaad oo ay ka mid yihiin xeerar la xidhiidha maaliyadda qaranka. waxaan markaa wax iska weydiinaynay oo aanu doonaynay inaanu iftiiminno meelo aanu doonaynay in aan wax ka bedelno xeerka. ujeedkuna ay tahay inaynu helno xeerar qurux badan oo markastoo xeerka lagu shaqeeyo waxbaa ka soo noqda. marka iyadoo laga eegayo bulshada xaggeeda iyo shaqadaba inay noqdaan xeerar ummadda u dana ayaanu ka wada soconnay. marka kulanku iska kulan furan buu ahaayo bilow ah wuu sii soconayaa. marka ujeedka guud kaasunbuu ahaa. insha allah markuu dee xeer noqdo golaha tagana waydin heli doontaan. maanta wasaarad ahaan waxaanu faahfaahin dheeraada ka siinaynay xeerka dakhliga Soomaaliland oo guddida horyaalla. runtii kulankaasi wuxuu ahaa kulan muhiima oo wasaaraddu amba xukuumaddu ay tafsiir dheeraada ka bixinaysay soo jeedimaha wax ka beddelka ee xeerka dakhliga oo golaha wakiilada horyaalla guddiduna ay gacanta ku hayso. waxaanu isla fahamnay oonu faahfaahinay ujeeddada dawliga ah ee aynu ka leenahay soo jeedinta wax ka beddelka xeerkan oo runtii nuxurka ka dambeeya uu yahay sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga gudaha ee dalka si ay miisaaniyadaha iyo dhaqaalaha dawladdu ay wax ku maamushaa uu u noqon lahaa mid sugan oo laysku hadlayn karo oo aan xidhiidh la lahayn dhaqdhaqaaqyada iyo isbedelada ganacsiga iyo dhaqaalaha adduunka balse uu yahay mid gudaha ka abuurma. waxaa sidoo kale aanu guddida u faahfaahinay muhiimadda uu u leeyahay xeerkani dhaqangelkiisu in aynu dowlad ahaan xidhiidh caalamiya iyo mid maalgashi iyo mid isugudub badeecadeedba aynu ku samayn karno dekedaheenna madaaradeenna si aynu uga faa'iidaysanno waddammada afrikaanka ee bariga afrika iyo ilaa bartamaha afrika ee badaha aan lahayn. marka dhaqangalka xeerka dakhligu wuxuu fursad siin doonaa inaynu maalgashiga caalamiga ah iyo socodka ganacsiga iyo heshiisyada isugudubka badeecadaha aynu fursad u heli doonno inaynu waddamada ka faa'iidaysan doonno maadaama oo maalgashiga dekeduna dhammaaday jidkii koridorka uu dhammaad iyo gebagabo ku dhow yahay. free zonekii uu dhammaaday oo guddidu ay hore u ansixisay xeerarkii free zoneka iyo xeerarkii kale ee dekedaha. runtii wuxuu ahaa kulan aad u muhiima. waan uga mahad celinaynaa guddidu su'aalo iyo faahfaahimo runtii aad u xeel dheer oo ay naga weydiiyeen oo annaguna wasaarad ahaan aan uga wada jawaabnay. waxaanu rajaynaynaa inay goluhu ka gudan doonaan wiigaga soo socda waajibaadkooda dastuuriga.